Odayaha fulinta dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh oo maanta shir jirayd ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu baaqay qurba joogta iyo dadka ku dhaqan magaalada Burco in si degdeg ah u bixiyaan cashuuraha lagu leeyahay haddii kalena ay tallaabo ka qaadi doonaan. waxaan dadweynaha reer Burco ama reer Somaliland ee kula magaalada Burco dhulka bannaan u sheegaynaa horana halkan uga sheegnay in ay sida ugu dhaqsaha badan leh soo bixiyaan ayaamkan insha Allah ta'ala soo socda cashuurtii dhulka bannaan tii beeraleyda laga saaday sarfeyga dhulka bannaan hadduu siisan yahay haddii uu milkiyad leeyahay haddii aanu lahayn haddii laga saaray sarfeyga intaba waxaanu ka doonaynaa cashuur sanadeedkii dadweynaha muwaadino waxaad qofka kale kaga sheeganaysa ama aad lahaanshiye sharciga ku yeelanaysa halkana aanu ka sheeg annaguna aanu kugu ilaalinaa kugu xafiidinaa kaaga ilaalinaa wixii boob iyo xumaan dhulkaagaba ku hayo xadgudubba marka aad cashuurta dawladdu kugu leedahay iska soo bixiso ee sanawiga taasi waxay ku ilaalinaysaa xaqna aad noogu leedahay inaanu kaaga ilaalino wixii dhulkaaga kaaga soo xadgudbaya wixii ka boobaya wixii ka damaacaya intaba naga xaq loogu leeyahay laakiin haddaanan cashuur waxba yaraatay bixin waxa qofka kale kaga sheeganaysa ma jirayso go'aankeegu way haddii cashuurta sida ugu dhaqsaha la soo bixin waayo ilaanu qofka muwaadinka ay ka xigin qofka kale way ku afaan taas aqoonkeegu geesta kale waxa uu xoogayuu ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Burco inay kala shaqeeyaan nadaafadda sida ay ka dawlad haasan ay u laba jibaareen sida ay uga shaqeyn lahaayeen nadaafadda sababtoo ah buu yiri in lagu guda jiro xilli roobaadka Axmed Yiloode ay sub ilaahay mid kale badan ka filayno waxaan dadweynaha ku baraarujinaa ku wacyigelinayna nadaafadda guud qashinka guud ilaalinta guud wacyigelinta guud ina nagala shaqeysaan ina ilaalisaan oo xilligan maanta xanuuno badan baa ka dhalan kara cudurro badan baa ka dilaaci kara gacmo wada jir bay wax ku qabtaan bay Soomaalidu ku mahmaadaa gacan kaliya wax kuma qabo haddaan anaga ka fargarayna dawladda hoose dadweynuhu halkaan ma fariista beebar iyo shir Qadar Cabdirasaaq Suleybaan shabakada caalamiga ee Harwanaag News magaalada Burco.